Assalaamu calaykum kusoo dhawaada janalka maalmaha. Waxaan idin soo gudbinaynaa qiso aad u xanuun badan oo dhex martay hooyo iyo wiilkeeda. Hooyo ayaa waxay ifka ka qabtay hal wiil, waxayna u jecleed si xad dhaaf ah. Wiilkani ayaa ahaa mid aan hooyadii u wanaagsanayn, wuxuuna ka dooran jiray xaaskiisa. Maalin ciid ah ayaa waxaa soo wada baxay wiilkii iyo xaaskiisa, waxayna hore u soo wadeen hooyadii oo markaa xambaarsaneed wiil yar ay labadooda dhaleen. Waxayna soo aadeen suuqa dahabka lagu iibiyo. Wiilkii xaaskiisa ayaa waxay dalbatay dahab. Markii loo soo saaray ayuu wiilkii weydiiyey qiimaha dahabka, waxaana loo sheegay inuu gaarayo 20,000 oo riyaal. Kadib markii uu xisaabta fiiriyey ayuu wuxuu arkay 100 riyaal oo dheeri ah. Markaa ninkii wax iibinay ayuu weydiiyey, wuxuu ku yidhi maxay tahay 100 riyaal oo dheeraadka ah. Ninkii dukaanka ayaa ku yidhi hooyada ayaa waxay qaadatay faraanti dahab ah. Wiilkii ayaa aad u carooday, wuxuuna tuuray faraantigii. Kadib hooyadii ayuu ku yidhi habraha gaboobay oo adigoo kale ah dahab ma xirtaan. Hooyadii ayaa iska oysay, kadibna waxay soo aaday gaarigii ay wateen. Wiilkii xaaskiisa ayaa ku tiri maxaad sidaa u yeeshay? Waxaa laga yaabaa inaysan mar dambe cunuga noo qaadin. Waxay ula dhaqmeen inay u tahay booyaaso oo kale. Ninkii dukaanka iibinay ayaa wiilkii canaantay oo ku yidhi maxaad sidaa ula dhaqmaysaa hooyada? Kadib wiilkii wuxuu soo qaaday faraantigii, wuxuuna u keenay hooyadii oo ku dhex jirta gaariga. Wuxuuna ku yidhi haddii aad doonayso faraantigan qaado. Hooyadii ayaa dhaaratay oo ku tiri ma qaadanayo, waxaan doonayay inaan farxad ku ciido sida dadka asaagayga ay u faraxsan yihiin, balse waxaad iga dishay farxaddii ee allaha kuu dambi dhaafo. 6 bilood kadib dhacdadan, wiilkii wuxuu ahaa mid la tacaalaya cudur, wuxuuna isticmaali jiray daawooyin aan u wanaagsanayn caafimaadkiisa. Hooyadii ayaa u adkaysawaysay daawooyinka uu wiilkeeda isticmaalayo, waxayna uga baqday inay dhibaato u geystaan. Waxayna jeclaysatay inay ka daadiso daawooyinka. Kadib daaqadda ayay ka tuurtay. Wiilkii ayaa wuxuu aad u carooday arrinta ay hooyadii ku samaysay. Kadibna wuxuu go'aansaday inuu guriga ka ceeriyo, wuxuuna ka soo buriyay gurigiisa. Hooyadii ayaa iska soo baxday iyadoo ooynayso, waxayna ku tiri wiilkayga Allah ku saamaxo. Akhbaartii hooyadii ayaa muddo dheer la waayay. Wiilkiina waxaa ku sii batay cudurkii, wuxuuna galay isbitaal. Muddo kadib wuxuu ka soo baxay isbitaalkii isaga oo aad u niyadjabsan, waxaana ku dhacay faqri daran. Gurigii quruxda badna uu degnaanay gacantiisa ayuu ka baxay. Maalin maalmaha ka mid ah isaga oo TV-ga fiirsanayo ayuu wuxuu arkay sheekh ka hadlaya samafalka waalidka iyo faa'iidada uu u leeyahay qofka, iyo inuu ka qayb qaadanayo in qofka loo barakeeyo risqigiisa. Wiilkii ayaa fikiray, wuxuuna ogaaday dhibaatada haysata inay kaga timid hooyadii xaggeeda, wuxuuna isla markiina ku dhaqaaqay inuu hooyadii raadiyo. Muddo dheer kadib wuxuu u tegay hooyadii iyada oo ku nool qol yar, kuna nool waxyaabaha dadka ku soo sadaqaystaan. Markii uu arkay ayuu naxay, jilbaheeda ayuuna qabsaday, aad ayuuna u ooyey, wuxuuna ka dalbaday hooyadii inay iska cafiso. Hooyadii ayaa ayadana dhinaceeda ka oysay, waxayna ku tiri wiilkaygiiyow waan ku cafiyey. Kadib waxay ku soo laabteen gurigoodii. Halkaas ayaa waxaa wiilkii uga bilaabatay nolol cusub, shaqo cusub ayuuna dib u helay. Deemihii lagu lahaana dhammaan wuu iska guday, waxayna wada degeen wiilka iyo xaaskiisa iyo hooyadii guri aad u qurux badan. waxaasoo dhanna waxaa u sabab ahaa samafalkii iyo baarinimadii uu u sameeyey hooyadii. Rasuulkeenana wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, raalli ahaanshaha alle waxay ku jirtaa midda waalidka. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha, fadlan subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigi doono. Mahadsanid.